Assalaamu calaykum walaalayaal kusoo dhawaada barnaamijka sahanka saxan halkaasoon idinku soo gudbino sheekooyin ay ka buuxaan iimaan geesinimo iyo daahfur waxaan ka mid ahay qabanqabayaasha barnaamijkan Canab sheekada maanta waa sheeko la magac baxday Bilaal iyo beerta xigmadda qarsoon waxay ka saabsan tahay wiil yar oo dareemay inaan la arki karin laakiin bilaabay safar u horseeday inuu ogaado kartidiisa gaarka ah iyo sida uu ugu qanacsan yahay naftiisa haddaba aan wada bilowno safarkeena magaalo yar oo ku dhex taala meel buuraley ah ayaa waxaa ku noolaan jiray wiil aamusan oo la oran jiray Bilaal waxa uu ahaa wiil naxariis badan oo fakar badan balse waxa uu inta badan dareemi jiray inaanu ka tirsanayn bulshada isagu mana aanu ahayn ilmaha ugu caansan dugsiga mana aanu ahayn kan ugu dheereeya ama ugu xooga badan marmarka qaarkood Bilaal waxa uu dareemi jiray inuu yahay hadh oo kale aan dunidaba laga dareemaynin dugsiga Bilaal waxa ka buuxay caruur firfircoon oo wax kasta ku fiican sida ciyaaraha iyo aqoonta guudba laakiin Bilaal waxa uu dareemay inaanu waxba ku fiicnayn meesha uu ugu jecel yahay inuu u baxsado waxay ahayd keenta gurigiisa u dhow halkaas uu kali ku ahaan jiray fikradiisa iyo riyooyinkiisa geeduhu waxay u ekaayeen inay deganaan ku dareemayeen shimbiruhuna waxay u heesayeen sidii iyaga oo fahmaya oo kale galab galbaha ka mid ah markii uu Bilaal si qoto dheer u sii galay keynta ayuu ku turunturooday beer yar oo cidlo ah oo ay ku hareeraysan yihiin kaymo qaro weyn iyo geedo dhaadheer ahayd mid degan oo nabad ah sidii iyadoo aan beerta la taaban waqtigaas Bilaal waxa uu dareemay inay soo jiidatay meeshan qarsoon asaga oo dareemay dareen nabadeed aanu hore u dareemin Bilaal waxa uu bilaabay inuu si joogto ah u booqdo beerta asaga oo nasasho ka helay iyo xasilooni buug xasuus qor ah iyo qalin ayuu la yimi wuxuuna bilaabay inuu sawiro dhirta ubaxa iyo geedaha uu arkayay sawirka waxa uu noqday hab uu ku cabiro fikirkiisa iyo dareenkiisa ahayn wax ku saabsan inuu yahay sawirka ugu fiican waxay ku saabsaneen soo jiidashada iyo quruxda ku hareeraysan maalin maalmaha ka mid ah isagoo Bilaal sawiraya beerta ayuu wuxuu arkay nin waayeel ah oo beerta u soo socda ninkii oo dhoola cadeynaya oo indho naxariis leh ku eegaya Bilaal ayaa wuxuu ku yiri heshay jannadaydii yareyd waxaan xanaaneynayay beertan sanado badan waxay u muuqataa inay saaxiib cusub kula noqotay dhab ahaantii waxaad ku dareemaysaa wax gaar ah meeshan waxaan daawaday adiga oo sawiraya oo waxaad haysataa hadiyad Bilaal waxaad u aragtaa adduunka si gaar ah taasina waa wax lagu faano ayaa waxa ku jawaabtay beertii wuu yaabay sababtoo ah qofna weligii uma sheegin inuu haysto hadiyad u gaar ah wuxuu bilaabay inuu sawiradiisii ku arko iftiin cusub mana aanan ahayn sawirada oo kaliya balse waxay ahaayeen kuwo ka turjumaya sida uu u arko adduunka oo waxaa ka buuxay qurux iyo tafaasiil adag oo laga yaabo dadka kale inay iska indho tiraan beerleyda ahaa waxa uu Bilaal la wadaagay sheekooyin ku saabsan muhiimadda ay leedahay dulqaadka u fiirsashada iyo qadarinta waxyaalaha fudfudud ee nolosha waxa uu u sharaxay sida ay beertu u horumartay sababtoo ah daryeel iyo feejignaan joogto ah iyo sifooyinka la midka ah sida ay Bilaal ugu caawin karaan inuu ogaado meelaha uu ku wanaagsan yahay Bilaal geed kasta oo beerta ku yaala suu u leeyahay waqti gaar ah uu ku baxo adiguna sidaas oo kale ha ka walwalin inaad banaanka istaagto ama aad noqoto sida dadka kale oo kale diiradda saar kobcinta hibooyinkaaga iyo waqtigaaga waxa aad arki doontaa sida isbeddelkoogu sameeyaan ayuu ku yiri ninkii beerleyda ahaa Bilaal waxa uu si dhab ah u qaatay ninkii beerleyda ahaa hadalkiisii sii waday inuu sawiro beertii laakiin hadda kalsooni cusub ayuu la helay waxa uu bilaabay inuu ogaado sida sawiradiisu ay farxad ugu keeni karaan dadka kale asxaabtiisuna aad bay ula dhacsanaayeen shaqadiisa macalinkiisuna xitaa wuxuu fasalka dhexdiisa ku soo bandhigay mid ka mid ah sawir gacmeedka Bilaal waxa uu ogaaday inuu dadka kale ka dhex muuqan inaan la arkayn balse inuu isagu aanan ogeyn qiimihiisa markii uu ogaaday oo kobciyay kartidiisa waxa uu ku qancay cidda uu yahay markii uu saas sameeyayna waxa uu gartay inaanu u baahnayn inuu noqdo ka ugu dhaqsaha badan ama ugu codka dheer si uu micno u sameeyo xooggiisa iyo kartidiisa gaarka ayaa ka badan oo kuna filan
sidaa darteed walaalaheena qaaliga ah waxa aan rajeynayaa bilaal iyo beerta xigmada qarsoon inay kugu dhiirigeliso inaad ogaato hibooyinkaaga gaarka ah oo adiga kuu qarsoon. su-aal baan idin weydiinayaa intaan ka bixin ka hor walaalaha qaaliga ah, maxay tahay hibada kuu qarsoon adiga?